waa qiso aad u xanuun badan. Qisadan waxay ka dhacday geyga Soomaaliya meel ka mid ah, gaar ahaan miyiga. Qisadan waxaa inoo warinaysa gabar ka mid ah gabdhaha walaalaheen ah. Waxayna tiri qisadan waxay ku bilaabatay hadda ka hor waxay aaday gabadhaas sida ay noo sheegtay meel miyi ah, waxayna aragtay islaan waayeel ah oo markasta indhaheedu ay ilin ku taagan yihiin ama ay ooyeysa. Waxay weydiisay hooyo, maxaad u ooyeysaa mar walba aan ku arko? Indhahaaga ilin ayaa taagan. Waxay tiri hooyo, waxaan la ooyayaa oo aan ka tiiraanyeysnahay hadda ka hor aniga iyo gabar la ila qabo oo iga yarayd ama min yar ahayd ayaa waxaana dhex martay qista xanuun badan oo aniga kaliya aan hadda ogahay, ilaahay aniga kaliya baa og. Waxay tiri waxaa dhacday gabadhii la ila qabay, ilaahay wuxuu siiyey 2 wiil oo yaryar oo markaas dabka aan ka leexan karin. Anna wuxuu Alla i siiyey 2 wiil oo waaweyn oo kaalin gala, shaqooyinka maalinlahana aad u qabta. Waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah gabadhii la ila qabay ayaa waxay u baahatay ama waxaa ka lumay oo ka habaabay neef ka mid ah neefafkeedii. Waxay tiri hebloy, neef baan raadsanayaa, carruurta iga warhay oo dabka yaysan iga dhicin. Waxaa maalintaas shidnaa saalo ama sida taqaanaan xerada agteeda marka saalada laga guro ama digada ariga marka laga guro waxaa la geeyaa boodka guriga meel u dhow ayaa lagu shidaa, waxaana loo sameeyaa oodafo si aysan ubadka ugu dhex dhicin. Gabadhii hayaan ku iri ilmihii bay iga tagtay, waxayna baadidoon u aaday neefkii ka lumay. Muddo markay maqnayd waxaan arkay ilmihii yararka ahaa oo banaanka u soo baxay oo ku ciyaaraya. Intaan soo orday, waa wax shaydaan wax ka wadee, ayaan oodii oga qaaday saalada shidnayd ayaan oodafadii oga qaaday. Kadib waa iska noqday. Carruurtii meeshii ayay galeen saaladii wayna ku gubteen, 2diina way ku basbeeleen oo way dhinteen. Gabadhii dhashay ilmaha ayaa waxay timid waqti dambe, waxayna raadisay ubadkeedii ayay aqal Soomaaliya ka fiirisay mise kuma jiraan. Way naxday. Waxay soo aaday dhinacii saalada ay ka shidnayd mise waxay aragtay wiilasheedii oo gubtay oo basbeelay, lafa noqday. Aad ayay maalinta u tiiraanyootay, istaagay ka dhacday, waxay gashay koomo. Waxaa kale oo ka dilmay ilmo ay markaas uurka ku siday ayaa ka dilmay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka daalimka ah wuu qabtaa oo Alla wuxuu yidhi inna batsha rabbika la shadiid. Umaysan daahin isla habeenkaas ayaa waxay tiri islaanta sheekada warinaysa ayaa wiilasheedii waxaa iga cunay mas. 2dii wiil ee xoogay ahaana halkaas ayaan ku waayay. Reerkii waxaa u bilaabatay murugo, balse gabadhii yarta ahayd ama min yartii way iska sabartay. Alla wuxuu siiyey gadaasheed ilmo aad u fara badan, 13 wiil ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey. Anna Alla wuxuu i siiyey bay tiri maamada sheekadan warinaysa hal gabar. Gabadha waxay igu noqotay gabar caasiyada aan waxba iga maqlin, balse wiilashii 13 ahaa ee gabadha dhashay aan ilmaheeda sababta u ahaa inay dhintaan, waxay wiilasheedii ii noqdeen garbahayga. Meel walba oo aan u baahdana way i geeyaan, wax walba u baahdana way ii sameeyaan. Waxay tiri waxaan ka ooyayaa dhibaatada aan u geystay gabadhaas uu Ilaahay kaliya ila og yahay iyo aniga. Sidoo kale Ilaahay siduu ii dhaafiyey wiilashaydii ayadana aan sabab u ahaa in wiilasheeda ay gubtaan. Gabadhayda hadda Alla i siiyeyna aysan baari igu ahayn. Marka waxaan aad uga tiiraanyeysnahay dhibaatadaas aan geystay oo aan sababta u ahaa. Marka intaas ayaan la ooyayaa. Sheekadan waxaan ka baranaynaa gabdhaha Soomaaliyeed ee afooyinka ah ee la isla qabo alaaba waxaa ka dhexeeya xifaaltan aad u liita oo min weynta ayaa badanaa waxay durtaa ama ay dhibaataysaa gabadha la qabo ee min yarta ah. Marka dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyin aad u soo noqnoqday. Waxaan qisadan uga faa'iideysanaynaa in aan ka baranno in aanan la isdhibin. Adduunyadan waa ayaamo, ayaamahaasna Ilaahay in loogu dhowaado cibaado iyo in la isgarab istaago mooye wax kale qofka anfici mayaan. Waxaa loo baahan yahay gabar walba oo muslimad ah oo Soomaali ah inay xaaskeeda ama odaygeeda baari u noqoto. Gabadha lala qabo hadday jirto ay sidoo kale ay ayadana wax xifaaltana aysan nolosha dhexdeeda ka bilaabin ama cuqdad aysan isu qaadin. Waayo Ilaahay ayaa u baneeyay raggu inay guursadaan 2 iyo wax la jira.
xifaaltanka noocaas oo kale ahna mid aad u fiican ma aha in hilfaha la isgooyo oo la isdhibaateeyo, dhibtuna qofku way ku noqotaa. oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku leeyahay walaa yaxiiqu lmakru sayyi'u ilaa biahlih. qofka dhibta geysta dhibtu asaga unbay u noqonaysaa, qabashada ilaahayna waa mid aad u daran. saas ayaa loo baahan yahay. haddii ay ku cajabisay qisadan, fadlan sheer gareeya, sidoo kale nala wadaag dhanka faallada qisadan mid la mid ah haddii aad la kulantay. mahadsanid.